هي حساسية gabadhii oo fihimo quuje isku day dil iyo shirqool ay ka badbaaday fihimo qooja naag dhulbaantaa jaamac siyaada iyo qamar sugaani ayaa gurigeeda waxay geliyeen xashiish iyo lacagta doolarka madooba la geeyey qamar sugaani iyo lacagdu lacag waxa la sheegay ilaa $50,000 qandaraas lagu qaatay dad baa loo diyaarshay waxa la rabay in fihimo qooja laga taqallaso oo libaax la siyaa la rabay fihimo qooje naag dhulbaantaa ayaa gurigeeda waxay geysay xashiish iyo doolarka lacagta oo madow maxaa dhahaa ayaa la geeyey gurigeeda dabeeto fihimo quuje wixii markay aragtay lacagtii markiiba gabar la socotay u dhiibtay waxay iga daay iyo xashiishka bannaanka lagu daadsay naagtii bay guriga ku xiratay fihimo quuje tagtay ka surtay waatan ay soo baxda ceebta waxa aragteen ee suuqa maraya ee fiidiyooyin qaaqaawan iyo nijaas iyo qamar sugaani iyo wuxuu sameeyay qamar sugaani wuxuu rabay inuu ka taqalluso fihimo quuje yuu rabay inuu fihimo quujo ka taqalluso rabeen raashin isaaq waxay rabeen inay soo aftiraan naagtaasayna u adeegsanayeen oo jaamac siyaada oo reer warsamaa oo reer liibaana iyay u adeegsanayeen inay fihimo quujo baabi'iso naagtaasay norway ka wateen si ay qorshahaas u fuliso oo fihimo quujo loo shirqoolo fihimo quuje ilaa hadda waa la haystaa oo waxa la yiri gabadhii aad lagu haystaa hadda kiis kale loo sameeyay iyo telefoonkaad ka jibisay iyo gabadhii aad guriga ku dhex garaacday iyo waxaas laakiin in qamar sugaan waxa ka go'nayd in fihimo quuje loo dhameeyo mara Kenya qofka lagu qabto lacagta madow iyo xashiishadaasi waxa lagu qabto libaaxa loo dhigaa inta la qaado libaaxa loo dhigaa maxay dhahan qofka tuuga maxaa lagu dhahaa miisi miyaa lahaa waxa weeye arrintaas fihimo quuje fare inta ku badbaado wallaahi oo billaahi oo tallah aniga fihimo awoogeedaan ahay waa jeclahay annaga xitaa annagoo kale qadiyad ah haddana mar kasta fihimo quuje ha noolataan leh laannu waxna ilmana waa inoo dhashay annaga aan dhalne raashi isaaqna waxaan leeyahay fihimo quuje gabadha ilmaha idin dhashay wey laba jeer bay idin dhashay marna Mustafa marna ninka bixiide marna kii habar Yunis waxa la rabaa in gabadha la xushmeeyo oo dagaalka ka jira gobolka iyo aan loo daba joogin oo shirqoolka iyo dhibaatada la daba joogo fihimo quuje ma taqaana ilaahay kuma soo diir la joojiyo qamar sugaanna waa askuliste wey abdullah jibru wuxuu jiraa alkuliste qofka alkuliste maxaa tirada duf qaan qofka askuliste tirada askuliste